السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا ملك استدوني على الجوكتان وإن سلام يا فاميلي إذا ملك استدوني على الجوكتان وإن سلام يا إن كل وجه أنا ضل أعتمد صدق ما يسمونه مرينيا وإسلامتي نمعة هاي مع هبي أوكي maanta inkastoo iskara badan tahay ama garanaysaa intaan iskara badansannahay alxamdulilah annagana miciyada waaqan ku jirnaa ilaahay xamdigiis waxaan rabaa halkan inoogu duceeyo wax yarna aan ka sheekeeyo loogu dhacay aniga waxaan rabaa halkan inoogu duceeyo in all muslim meel kasta joogaan waxaa leeyahay ilaahay wax nagu baraya intii dhimatay naxariista janno allah ka waraabiyo inta noolna oo xanuunsana caafimaad sareecana ha siiyo intii caafimaad qabtana allah u siiyo siiba inta coronavirus maan laha uu haayo ilaah weyne waaxidka ah asaa caafimaadka bixiyo dhakhtar caafimaad bixiyo ilaah weyne waaxidka waanu baryaynaa inuu si degdeg u caafiyo okay horta coronavirus haddii ilaahay kugu dilay waad ku dhimanaysaa hadduusan magaranaysa ilaahay uu kugu dilayna ku dhiman maysid marka koowaad marka labaad inagu haddaynu bini aadan nahay dadka bini aadan sheegta aan nahay weliba waa si fiican fadhiistay inagu haddaynu bini aadan nahay weliba dadka bini aadanka sheegta aynu sabir mali samir dhan mali sababde waxaa lagu leeyahay hebelow coronaviruskiyaa dilay coronavirus iskama imaanin sababtu ku yimid waxay tahay waa qofkan maalintiisii hadashay inuu dhinto aa qornayd waqtigiisa intaa ku ekaa malagii baa wuxuu isaga soo dhigay cudurkii okay hebelo waa dhinto wuxuu u dhintay walaahi hebel baa dilay qof hebel asagu dee ma aha inuu iskiisu dilay malagiisii ayaa gacantiisa ku jiray hebel inuu dilo malagii hebel dili lahaa aa hebel loogu soo dhiibay hebel baa soo qaaday 2 3 والله قفل بابور شيء نقف كده بابور كان فيه مركب إنه أساس وفاهم سنين واحدة حتى نص ستة ده الإيمان اللي بينه معي لكن فكرة مليون فهمت all in all channelkayga insha Allah bismillaah karim waxyaabo badan marana soo geliyo waxyaabo badan marana kala socotaan waliba sheekooyin aad u macaan qisooyin aniga igu dhacay aniga wixii dadka kale ku dhacay badan baan idin keeni doonaa insha Allah waan halkan soo fadhiisin doonaa haddii mawla igu simo haddii mawla igu simo oo nafta keen la cuno anigu mali nafta ilaaha iskale okay waxaan leeyahay rabadaanteeda ilaahay amalkeeda caafimaad qaban gaarsiiyo ilaah weyne waaxidka waxaan ka baryaa gifkeena geerideena inaysan ku nasiin dadba waxay u arkaan oo u qabaanba fannaan qofka diyo inaysan wax cibaada aqoonin
وحسلا هذا أخوني الباص السكر الكيسة سمع سلام مني أنا أوكي ما بوصل لحد فنك دنا فنك واحد شري ضد كيس كوي نسيان الفنانين مقوان واحد شري ضد إركس لمرة مو نفسه حسب مو نفسه فينا أنا هذا الشيء من فينا ما هي فينا ككاير يككاوين كل أب يكحبا حلو فاهم هنا بيستلتو أنا إسوا وشيء بيستو سودو يسوع بهذا الشغل فهمت لكن هذه أنا سيكا أسكوي نسي أنا متحمل أنا dadkayga aan ku ah laba jirkaan wax ku ahaan laba sano jirkaan aan nimca ku ahaan ilaahay ka sugo fahant dhihi maynaan fanaan weyn baan ahay saana ahay oo habarteeda kat ayaan dhihin nimcaan caadi nimcaan ahay nimcun baan anigu nimcun baan no dama karafon qaaton meel istaago ama aan kamal itumo oo aan soo fadhiisto nimcayska ma bedelin aniga nimcun baan walaalo siiba iyaal xaafad baan iyaalka xaafadaan fahant horta saas ii barta barasho wanaagsan dabcigaygu waa saas marka koowaad isqiiri kabiir dadkoo soo gelin marka labaad anoon dar horta hargeysaan ku koro intaan ku leekaaday waxaa jirtay taydaa bilaabatay markaa waxaa jirtay marcaawi waqtigii anoo gabadhayda misra wata walaashii oo dhalko samareeda waxtilaada ilaa nocokeen aan kaa qaaday gabadha labadoo bilood caanahan soo siiya ila soo joogta ama halkoobi okay aan ku dhafaayo waa qaadi kartaa adi gabadhii waa xanuunsatay la iima sheegin intii xanuunsanayd oo dhan way waxaa laga baqay inaa aan garanaysaay aan qaraacno gabadhi markay soo bogsan rabtayda alla i wacay inuu isrogi jirtay sablegaada fiicanta bigaan dhahay gaari qaadan raacay waxaan tegay duusamareed markaan tegay waxaan sameeyey gurigaan tegay gabadhii baan arkay adigu muddo 3 weeks 4 weeks adigu bil camal baan joogay gaari la-aan waan diiday gaari qaad inaan soo raaco sababtoo ilmahan aan wato gaari qaad ma fuli karo gaarigu lalooyaa anina fulaya hadana ii sheegay baabuur iyo xasan faacila baabuur iyo waxaas waan ka cabsadaa bes waxa dhacday maanta baday gaari hay'adda nimco imaaday oo soo socda gaariga soo raacaysa okay maalintii kaan sixiray meeshii aan tagnay baabuurkan soo raacnay markaan soo raacnay baabuurkii baabuurta maarta dhahayo madax kanoo leeyahay wiilka baabuurkooda midabtu iga fadhiyaa wiilka kirshbeygan bidixu iga fadhiyaa waa soo soconaa waxaan soo soconaba bangeele markaa marayna meel dhao bangeele marayna isbaaro adugu xataa la stop aan taashto waxa dhacday adigu waan la istaajiyey baabuurta leexiyaa dhahay baabuurkaan la socnaa marka gadaal u baxay fadnacayno hore u socdo oo dhinaca istabta oo geed weyn ku yaalo hoostiisa istaago dhaqaaqa uu baabuurka wiilka soo u dhaqaajiyeyna walaa aan degi sug baan kasurmay nimco waxba dhimaato male waxba waa gudbaynaa nimankaan ninkaasaa la hadlaayo rasaas baa afkana loo saaray qofku markuu xabadda ka dheeryahay oo meel fog ka dhacaysa camal
qofkaasi wuxuu dareemayaa xabadda uu maqlayaa dhow wiifteeda uu maqlaa macna laakiin ma hataa hoosta uga jirta xabaddii waxay u yeeraysaa muusig ahaan camal waa isku darsoomaysaa 6 wiil baan eryaday baaburku socda aniga marka go-aankaygu anu waxaanba aaminay buu khalaas waa dhimanteen waxba adigiisuna ma kala haraysin niyaddeedaas isku jirtay fahamteen waxa dhacday suraan qabsaday hoostaan kasoo hoosan fadhiistay markaa arkaynaysa xabaddu joogsanaynin oo muraayadii korkeena ku daateen aan waxaan iri walaal maxamed gaariga jooji walaal maxamed gaariga jooji walaal maxamed gaariga jooji ma i maqlaayo marka ninka maqal dhan ma jirabo waan soo kacay markaan soo kacay koraan u fiiriyey mise ninkiiba steerinkiibu isku yahayba shookaantii uu ku foorara alafu dhiiggiisii oo dhan baan ugu daadanayaa marka waxaan go-aansaday inaan iska leexiyo oo gebigiista iska leexiyo baabuurka laamiga ku rido ama aan nala gadoomo ama meesha doona hanala maro ama aan ku dhimano ama yaanan ku dhiman kolinaan nuuxsanayo waa arka dhaqdhaqaaqay laakiin isma dheheenin xabadi kuguma taale just waxaan aaminay inaan dhimanaynabo bas waxaa dhacday si kastaan yeeli waan leexin kari waa ninkii soo markuu qofku uu magasa naftiisu ay ala qaadi karaa laakiin qof sakaraad ah oo gebigiisu aan is ogeyn lama qaadi karo intii ilaa aragti kale way ii sheegi doontaa waan riixi wari markaan riixi kari waayo aan cagta waxaan la raadiyey meelaan baabuurka ka istaajiyo baabuurwado ma kaseenin ani cunugteediina halkaanay taashtaa naqaska ku degan ana marka waxaan aaminay gabadha ma noola wallaahi waxaan aaminay gabadhayda inaysan noolan misra oy dhimatay baan aaminay anigana kolle inay waanu inaan hadlayo oo xooggii iska waayo oo dee ninkan waa riixi kari laakiin ma aqaan wax ugu dhacay waa riixi kari waayey marka waxaan aaminay aniga laftigeena xabad meel iga taalo meel noqotabo laakiin intaanaan ka noolaho dee aan madaxa ma istataabtay waxba igu oolin bas waxaa dhacday waxyaana hadalka idinku daali ku wareerinayna waxaa dhacday baabuurkii meesha waxa kale lugtaan la helay baabuurka istaagay qiiq inta dhul istaagay ilaa markuu soo istaagay horta xabadina lagu joojiyey xabadii lagu joojiyey anaa kasoo tegay korkayga wada dhiig ummadii tuuladaas ayaa ma maxaad qabtaa ma ogi ma hadlahay gabadh saasaan u wataa kasaa waxa gabadheeda way dhimatay aan ku hayo isra way dhimatay ma noola soo naqaska bay gabadha baaruudi iyo wixii oo naqas ku dhigay waayo gaari gudihiisa wuxuu noqday maxaan ku tilmaamahay shaandho uu noqday marka waxaan ku hadlan garan waayo ani waxaan kartay hal wiil oo meesha taagnay birman aldhiiji muddagood aldhiiji birmadoo ah saaji feerin maxaa gaarigaa saarnay maxaa qabtaa sankor waxaa ma qabaanay laakiin gabadheedu ma noola ahaa soo xararay wax meeshii la geeyo balabaladii u galay gabadheedu ay ka siibay biyaas sas loogu sheegay gebigeediba waa la baaray markii gabadhii yarayd korkeeda meel kasta meel xabada kaga taalo madaxa waa naqaska aa la bushkareeyey gabadh baa ilaahay ii soo diray aduu wax meelaha ku day gabadh naqaska ka soo baxay markiiba wax lagu qabtay markaasay oolihimada qaylo bilowday ani korkeeda wada dhiig bas
aniga dhiiggii markaan arkaba waan sii saseeyaa marahayguda dhiig madax beenaada ku daalinaya gaari yar buu naga soo daray biyolisi gaari yar buu naga soo daray bacaskiyaan doontaan maalin gaarigeen tegay waan furay mise laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah wiilkuwa aan tirsanaayo oo leeyahay maxamed waa gaariga istaaji soo nafku kuma jirto nafla caari xaaladiis way adag tahay waa naxay nin qori haysta wuxuu yaray intoo soctaa ku alaaban kara teleefonkayga dharkayga caanida nugta kabahayga kabin cunto kilaa kit wax walba oon lahaaba meesha ku jiraan wiidkaysta yaray ay karamadii ugu jiraan wixii dhan wax la bixinayo milibili baxa markayaan dhahay bes marka gaariga iga dambeeya waxaa saarnaa gabadha aan kasoo tegay walaashii wiilay dhashay oo hadda wiil jooga cabdullah reerkiisoo waxay sida habar ma nabad qabtaa gaaliyo xabadeeyey iyo balaayo ka dhacdan loo soo sheegay haysaa telefoonayga daqiiqada bacdiba aniga irwaaninta ili guriga minaan gurigi markaan mid baan oohin afka qabsaday la iska ooyo walaashii dharkii hadaa diricii laga bixin oo lagu jeexay iyo dhan dhiiggii had 4 beri wax muhiim 4 maalinaan ku dhahay dhiiggaasan kaga saarnaa iyo xasuusta wiilka mafahanti ilaa aan hargeysa imaado igama bi'in marka dhibaatooyinka adduunku iska badan yihiin ilaahay soomaali nabad baan uga baryayaa la yaabi maayo dadkan la leeyahay waa la xabadeeyey waayo sababta sabab la-aan dadka la sii dilaan ilaah weyne waaxidka ghafuura raxiim waxaan uga baryayaa waa yowma rabadaan inuu ilaahay quluubta soomaali inuu barcad isku mariyo qalbigooda oo ilaahay uu walaaleeyo ilaah ghafuura raxiimka waan ka baryayaa inuu walaaleeyo asxaabay waa idin salaamayaa intaas in ka badan waan idin hayaa sheekooyin badan baan idin hayaa insha allah bidmillahi kariim riwaayado filimaan goos ah saxaab badan baa soo socta insha allah bidmillah islaamin dadba inaan daawan doontaan maan jeclahay waxaan idinka tegayaa wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kal iyo laab ii noolaada meel kasta joogtaan aan idinma tilmaamayo man rabo inaan idin tilmaamo kole waxaad qabsanaysaan idinka yaqaana miskiintiina nimca habi waaye markaasa kal iyo laab